السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويدي السلام يا خيارتي دقالي دافا الدنيا مالك السوق قسوقنتيهين اسم نورين بيوتي ما تمحي نوسي دا اسم نورين بيوتي مدحا داندرفك كودعايو اما اقولك اما تحب تساوي قانتين بين مدحا او كودعايو خيارتي دقاليقا ايامات كهالي دونا وحيابها كينا اما وحيابها سببا داندرفك iyo sida iskaga ugu hortagi kartid dandruffka madaxaaga inuu na soo galin soo dhawaada asxaabtida qaaliga dandruffku yani saa ugu hortagi lahayd dandruffka ama taxubta ama agoolka ama madaxa cuncunka saa u taqaantiin bas ugu hortagi lahayd iyo sababaha keena iyaan ka faa'iideysanayna maanta asxaabtida qaaliga in asxaabtiina kale la share gareysiin ku tala galay insha Allah khiyaartida qaaliga faa'iido wacan insha Allah dandruffku waxyaabo badan baa keena waxyaabaha badan oo stressku kamid yahay ama qofka buuqa ama qofka isagu isla hadla insha Allah ilaahay u gargaara inta buuqsan inta xanuunsan ama inta fikraysa fikrada Allah ka dulqaado insha Allah waxyaabaha keena ayuu kamid yahay dandruffka waxyaabaha keena ayuu kamid yahay stressku talabaad waa madaxaaga ama tintaada oo tinyaal waxa jira ilaahay u dhaliyay madax saliid leh madaxdu waxay labo kala baxan mid waa daray buu ilaahay ku tala galaa marka waxa iska jira dad dry hair iyo waxa jira oil hair baa jira marka dadkan oil hair ka u dhashay shampoo isticmaalaan oo treatment iyo shampoo giiti oo iswata ah kuwaas ku badan chemicalka ama ku badan tahay qaleelku ku badan yahay iyo sababi karta dandruffka ama qalfaha madaxa ama taxubta ama agoolka soo taqaantiinba kuwaas sababi kara marka kuwaas chemicalka badan yahay inaad adiga iska joojisid marka qofkii dandruffku madaxiisa leeyahay isagu uu garan karaa madaxiisa marka waxyaabo badan ayaa markuu fiirsado waxyaabaha badan ay keeni kara iska joojin kara ama wuxuu ku badan iska joojin kara waxyaabo kale badan ayaa keeni kara dandruffka anaka Soomaali hadaan nahay xilbiyaadkan jecelahay ama wax macaan baan jecelahay waxyaabahaas oo kala keeni kara labaad waxa keeni kara madaxaaga oo ustag dhaafay ku deysid marka agool ama dandruff kugu dhalanaya marka asxaabay timihiina dandareeli weyno dandruff ugu dhalanaya sheyga afraad wuxuu yahay laftaada oo cunto oo adigana xoog cuqdid marka dandruff ama qulfa ayaa kugu dhalanaya siyaabo badan ayaa dandruffka keenay in laga hortago fiicanta asxaabtida qaaliga marka dandruffku waxa kale oo keeni kara ama madaxaaga marka xoqitaanka ku badaysay uu finan ama naburo ka soo baxay naburadaas oo kuwa ay keeneen xoqitaankii gacantaada ku badaysay iyo shiyaasha isticmaalaysa oo dandruff ugu dhaliyay sidoo kale wuxuu ku keeni karaa indhahaaga ku gudgudubtay markaad isku daysid dandruffka iska hagaajin weydid ama iska daweyn weydid sidoo kale wuxuu ku keenayaa wajigaaga naburo ka soo baxan ama jirkaaga ama madaxaaga naburo ka soo baxan iyo handisa badan ayuu ku sababayaa marka wax kugu sababi kara hadisa badan waxyaabaha kale badan oo sababi kara allergiga ama timahaaga ama indhahaaga ama jirkaaga adu waxyaabo badan allergy laga qaado allergiga kugu sababi karta agoolka ama dandruffka iska hagaajin weydid waxyaabo badan oo kale aniga ka hadlin oo sababi kara dandruffka way jirtaa waxyaabaha kale badan qofku markuu jiran yahay jirada ku raago kale uu sababi kara dandruffka Allah caafiyo qofkii xanuun qabo dhanba jirada Ilaahay baa keen horta ugu horeysa talabaadna Allah caafiyaan leenahay waan ducaynayna marka dandruffka waxyaabo badan oo kala sababi kara qofka oo proteinaadka ama fitamiinaadka jirkiisa ku batana uu dandruff yeelan kara marka taas oo sababi karta proteinaadka ama fitamiinaadka jirkaaga ka bata soo markaas inuu hortagi karna dandruffkaas waa adiga iska yareey shampooyadii ama treatmentyaasha isticmaalaysay soo horta waa la ogyahay treatmentka badanaa wuxuu keenaa ama jeelasha madaxa la mariyo waxay sababaan in madaxaaga dandruff ku soo bato ay sababaan marka wixii jeel la dhaho dhanba ka tagaysa markuu dandruff kugu dhaco anaka waa inaan isku daynaa siyaamahan ugu hortagi lahayn inaan soo qaadanaa 2 xabo liin oo 4 gabal kala jarnaa soo 4ta gabal waxa ku miiraysaa baaquli oo lafyaasha oo dhan ka saartaad ku miiraysaa marka kadib adiga waxa isticmaali kartaa saliid haysata isticmaali kartaa zeyt qumbaha ama olive oil ahaato ama ahaato saliid kasta adiga isticmaalaysid baad
laba qaado kasoo shubeysaa labada qaado xoog baad u qandacinaysaa markaad waxoogaa qandacan yar ka yar dhacona lindhaantii aad miiratay baad ku dhex darsanaysaa waad isdhex gelinaysaa si fiican markaad isku dhex gelisay yacni lindhaantii aad soo miiratay iyo saliidii aad soo diirsatay sponge yar baa qaadanaysaa sponge-ka yar baa dhex gelinaysaa alaabtii aad soo diyaarsatay waxa isku digaa yacni inaad tinta kaa gaadhin oo tintaada marin oo laftoo dhan yacni ku masaajin kartid laftaada ku masaajin kartid isku day soo waxyaabo badan ma kugu sababi kartaa tintaada kaa gooday kugu sababi kartaa haddaad timahaaga yacni ku masaajaysid oo lafta yacni ayr laftaada ugu masaajin weydid insha allah inaad ka faa'iidaysanaysiin khiyaarteeda qaaliga ayaan rajeynaya waayo dandruffku wax fiican maaha so make sure يعني inaad laftaada uun marin kartid oo tintaada ka ilaalsatid marka haddii tintaada kaa gaarto waxyaabo badan ay kugu sabaysaa marka 1 hour time baad adiga sugaysaa hal saaca sugaysaa saliidaadii iyo lindanaantaadii ay soo dhex gelisay hal saaca kadib ayaa iska dhaqaysaa laga yaabo adiga haddaa sensitive hair tahay sensitive hair wuu ku cuncunaysaa laakiin wuu bixin way faa'iido ku taraysaa inay wax ka haleynaysaa moodin marka adiga sensitive hair haddaa tahay ama nabro badan haddaa leedid waxaa isticmaali kartaa saliida badsan kartaa saliida isticmaalaysid baa badsan kartaa sensitive hair haddaa tihid marka dandruff yacni badan ayay kugu keenaysaa haddaad si fiican markaad dhaqaysid yacni shaambogaaga hadduu hal mar ku xooro kugu filan yahay had aragtid dandruff ama agool ayay kugu sababi kartaa marka haddaad aragtid inuu shaambogaaga hal marka ugu horeeya aad meedhaysid yacni markaa ugu horeeya timaaga iska dhaqaysid hadduu kugu filan yahay aragtid si fiican kugu xooro ha isku celinin waayo laga yaabaa inuu kugu sababto agool inay kugu sababto marka insha allah asxaabteyda qaaliga hal iska hagaajiyo dandruffka ama agoolka ama cuncunka timaha marka khiyaare waxa la socod wanaagsan intaan video dambe ku kulmayno insha allah خير ما يدين دافايا خيرتي دقالق وادي السلام يا سلام قالي يعني ديسو قدبنا ملك الصدافة دنيا كجوكتين بلا سعود وناكسن إن شاء الله انت فيديو دم بسبارك دونه وادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرتي دقالق وحيد قيلوبي يعني قفكي كل عصوب channel كينين سبسكرايب سيو قفكي كوسي جرين انه لايك سيو سبسكرايب مركو قفكي كل عصوب سيان انه كمبليل كتابصدو صدو ولا سعود عشردين sidoo la socda casharradeena saxaabtiina kalena si share gareeyay si uga faa'iideystaan waa idin salaamaya dhammaan dafadnida meel kasta ku sugantiin